Cable TV. xisbiyada mucaaradka Somaliland u cudiyo wadani oo maanta telefishinka Home Cable kula hadlay magaalada Hargeysa ayaa waxay sheegeen in duqa magaalada Hargeysa Cabdiraxmaan Maxamuud Caydid Soltelka uu ku fashilmay maamulka iyo wax u qabashada dadweynaha magaalada Hargeysa waxaana ay dadweynaha ugu baaqeen inay u diyaar garoobaan cod kalsooni kala noqosho oo ay gudbinayaan maxkamadaha magaalada Hargeysa xogayaha ciyaaraha ee xisbiga mucaaradka ee wadani Yunis Axmed Yunis iyo xogayaha xiriirka gobolada ee xisbiga mucaaradka ee ucud ayaa la hadlay telefishinka Home Cable imka Ramadaan ilaa maantada aan joogno roobku wuu soo noqnoqonaya caasimada roobku wuxuu soo noqnoqonaya si fiican oo raxmadii Ilaahay dhulka dhigay laakiin waxaad moodaa magaalada Hargeysa inay bilaamaayir tahay xaqiiqdii waxaan jecel lahay inaan maanta bulshada reer Somaliland gaar ahaan kuwa caasimada la hadalo caasimada Hargeysa waa bilaamaayir maayir marka la inoo bilaamaayir waxaan leenahay wax way uu joogay oo magacuyaal dhibta jirta waxa weeye 10 qof ku dhawaad bay naga dhintay intii roobkaasi socdeen 10 qof dad ka badan 50 qof baa ku dhaawacmay hanti malaayiin ku burburtay saaka waxa Hargeysa waa bariisatay iyadoo bariishkina ciirayo meel walba oo ililana xidhan tahay xashiishkina magaalada moodid magaalada xashiishka waxaan doonaynaa in shanta degmo iyo dhammaan degmooyinka cusub ee caasimada ay nagala qayb qaataan petition la samaynayo ogolayaasha deegaanka caasimadu lambaruun yihiin laga tuurayo meesha oo aanu degmo walba ka doonno 1000 qof 5,000 qof hadayna helno aynu iska tuurno dulmiga heeriyada ee golayaasha deegaankan sharciga ahayna caasimada fadhiya ayna bahdilay ee dadkii naga dhimanaya xataa aan lagu noqonayn meeshii maxay ku dhinteen dhibtu maxay ka timid aan la oranayn waxa nasiib daraa in madaxweynihii dalka loo doortay uu maalin markii afraad uu soo baxa suuqa isagoo roobki daayo uu dadka la dareen noqdo uu maayirkiina daba taagan yahay uu maayirkii u dilayno inay shaqadaadi qabso magaaladu garoon lagu ciyaaro way fido garoon yar lagu ciyaaro badeed male meel MCH laga dhiso male meel library laga dhiso male dantii guud waxaan ku dhisay ayaxa loo cunay waxaad moodaa madaxweynuhu inuu ugu abaal gudayo lacagtii campaign-ka thousands gaayade xooluhu umada ugu ololayeen inuu ugu abaal gudayo la sharci darro ku fadhiya maanta Hargeysa waxa haysta qashin koona kastoo uga baxdo wixii Hargeysa kula baxday qashinka burca la mid maaha berber la mid maaha boorama la mid maaha magaalada ugu qashinka badan leh Somaliland roobku markuu doo meel kasta qashin baa xidhay dhiirigii iyo biyo dhintay oo bacteria ka buuxo ayaa wadooyinkii suuqa dhex fadhiya halkii cuntada lagu gaday hodheelada hortoodii waxa fadhiya biyo wasakh oo dhintay qashinka hadiiba ay qaadaan maba qaadaan hadii waa kan iska tuulinay markay qaadana meel halkan la geeyaa oo la yiraahdo Hargeysada cusub waxa weeye 20,000 oo hektar oo isku weera oo qashka hilaalo taa waxa dheer nadaafad darada halka ka soo noqonaysa dhammaan mas'uulaha magaalada ku yaala ee ganacsiga ah qashinka laga qaado ee dareeraha ah waxa lagu shubaa meel halkana deetana dooxyada raacaan biyaha Hargeysa halka laga soo dhaamiyo iyo halka lagu sayriyo ay dawladda hoose ku sayriso biyahan wasakhda laga dhuro wasuuliyadu waxba ma dhaxeeyaan dad baa ku sumoobay xoolo baa ku sumoobay waxa weeye maanta waxa inoo fadhiyo golo sharci dejineed oo fadhiid noqday oo baarlamaanka waxa inoo fadhiyo golo deegaan oo sharci darro oo fadhiid noqday war dadkii dadka may falayn maxayna haysta inaan isku nimaadno inuu petition madaxweynuhu haduu ku taageerayo doorashadii bay iga abaal mariyeen oo ay lacag siiyeen inaga maxay abaalka inoo galeen maxay tahay reer Hargeysanahay waa inaynu iskacmaha isqabsanaa oo magaaladeena dhimatay ama Hargeysa inaynu ka guurno ama aynu iska qabanno golaha fadhiidka oo golo wanaagsan aynu keensano doorashada madaxweynaha waxaan uga baaqaynaa hadii aad golaha deegaanka ee sharci darrada muddo dhaafay aad naga qaban weydo adigu xeer madaxweyne ku diri weydo annaga petition ku dirayna dadka reer Hargeysana waxaan leenahay soo diyaar garooba Xasan Galayd wararka Home Cable Hargeysa